wax badan ayaa dood waxay ka jirtaa marka loo fiiriyo jinsiyadda iyo muwaadinnimada sida loo micnayn karo. marka sidaa aan leeyahay maanta sharciga kan waa sharci khuseeya jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka, hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka. jinsiyadda Soomaaliyane meel ka baxsan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo federaalka ayay lugaha la gashaa. marka su'aal laga keeno yaa Soomaali ah ama yaa muwaadin ah, waxay yeelanaysaa jawaabta wajiyo fara badan oo aanan si fiicanna meeshaan ugu qeexnayn, dad badanna ay ku hayso su'aashaasi jahawareer. marka sidaa aan leeyahay, dad baa Soomaaliya waxay ku fasiraan ama qofka Soomaaliga jinsiyadiisa inta af Soomaaliga ku hadasha. taasina qiil ma noqon karto, waayo afku waa wax la barto, waa luqad. ninka Talyaaniga baran karo, ninka Ingiriiska baran karo, ninka Kenyaanka baran karo, ninka Etoobiyaanka baran karo. shanta qaaradood ee adduunka qaaraa ku gabyo Louis oo kale, ma gartay? Soomaali waay lama dhihi karo. jamhuuriyadda Soomaaliya marka la yidhaahdane dad af Soomaaligii ku hadlaya, haddana Soomaalidii marka haddana iyada la kala qaado Soomaali oo ayada leh oo dhalashadeeda ayadana loo nisbeeyo dalal ka baxsan oo Soomaaliya qaarna sharciyadooda ay caddahay oo marka loo fiiriyo duwal maaragtay ee citizenship, qofka Canadianka ah, qofka Europeanka ah ama kuwa Americanka ah, dhalashadooda haysta sida ay ku qaataan ayagu waa badanaadu meel loo raaco ayay yeelanaysaa. laakiin ninkii Soomaaliga ahaa ee waddamo qaarkooda markaan aan tusaale u soo qaato, Soomaalida ee maanta shantii ahayd ee isticmaalka uu kala qeybiyey, qaar jamhuuriyaddii Soomaaliya ayay maanta ay ka tirsan yihiin, qaarna dowlado kale oo shisheeye ah oo xataa xiriiradooda xumaada marmarka qaar ay u badan tahay isku dhacyadooda Soomaaliya ayay ku hoos nool yihiin. iyagiibaa waxay u kala baxaan kuwa Soomaalinimadooda ku dheggan oo ay asaaladoodii Soomaalinimadu ay mar waliba ay ka siiyaan priority waddamada ayaga ay ku hoos nool yihiin. kuwana Soomaalinimada intay meel iska dhigaan ayay si rasmi ah waxay u sheegtaan inay dowladahaasi jinsiyadooda dhaladka ah inay iyadu tahay. confusionka sidaasoo kale ah sooma wanaagsanayn. yaa Soomaali rasmiyan ee jinsiyadda baasaboorka qaadanaya xaq u leh, yaa si xaq u lahayn inay meesha ku caddaato. marka meel lasoo koobkoobay baa iskaga jirta oo hadda markaad fiirisid qodobka 4 xarafka H, ogolaansho iyo diidmo dalkugalyada iyo bixinta jinsiyadaha, intaasaa lagu soo koobay. inta marka ay xaq u yeelan karto iyo inta aan xaq u yeelan karinne haddaanan la kala saarin, mar waliba waxaa imaanayso su-aasha taagan ee doodaha dhalisay. maanta Soomaali Djibouti baa jiro, Soomaali Kenyaana jiro, Soomaali Etoobiyaana jiro, jamhuuriyadda Soomaaliya oo ayagana way jiraan. magaca Soomaaliya waa ka wada dhexeeya, kala baasaboorna way qaataan. ayaga laftirkooda isku dhaqan bay isku jinsiyadaha dhammaantood ay isku si ay u wada yihiinna loo wada qaataa, mise furuuq baa jirto qaab ayaga wada kulmiya oo u dhaxeeya oo laftirkooda laysla wada dejiyey ma jirtaa oo ayaga laftirkooda u baahan. kow
waxaa meesha aan rabaa inaan aan uga sii siraad koro maalan haddii qof soo qaad oo uu yahay Soomaali Kenyan oo passport Kenyan haysto ninka Kenyanka ah Soomaali passport ma qaadan karaa oo Kenyan Soomaali ma noqon karaa haddii sabab qaato la xuquuq ma noqonayaa Soomaali Kenyan Soomaaliga Soomaali kale oo ayada maanta oo haysato baasaboorada kale ee ajaanibta ah kaba soo qaad nin Canadian oo Soomaali ah oo Soomaali Canadian uu yahay haddii kii Soomaaliga uu noqday Soomaali Canadian nin Canadian ah baasaboor Soomaaliya ma qaadan karaa oo asagana ma noqon karaa Canadian Soomaali xuquuqda ninka Soomaali Canadianka ah ee Canada markuu joogo uu leeyahay ma yeelan karaa Canadian Soomaaliga markuu isagana baasaboor Soomaali uu qaato ilaa waxaan ognahay dood baa dhalatay bir dhaweyd ayadoo waxba aadan ka jirin bangiga Soomaaliya ayaa waxaa yiri waxaa loo dhiibay nin cadaan hadduu ninka cadaanka ah baasaboor Soomaali uu haysan lahaa oo jinsiyad Soomaali uu haysan lahaa wax sharci ah oo asaga u banayn karo ma iimaan kari lahay hadduu baasaboorkeennii uu qaatay marka sida aan leeyahay ninka Soomaaliga ah ee haysta dhalashada Canadianka ama Americanka ah uu xaq u yeeshay inuu ka tirsanaado hay'adaha sarsare ama golayaasha dalalkaasi inuu ka mid noqdo oo sida Congress lady maanta ay ilhaan u tahay aqalka cad ee Mareykanka ninka Mareykanka ah golaha shacabka ma soo biiri karaa haddii uu qaato jinsiyad Soomaaliya oo ma noqon karaa nin aqalka sarena ka tirsan waxyaabaha adaga xaaladda soo kordhisay ee u baahan in aad loo lafaguro jinsiyaddu waxay ka tahay qayb maadaama waxyaabo fara badan aniga haddii ninkii Soomaaliga ahaa la yidhaahdo adiga markaa inta joogtid Canadian baa tahay oo waxaad la xuquuq tahay ninka Canadianka ah laakiin aniga Canadianka ah markaan Soomaaliya aan tago maxay ii diidaya xuquuqda dalkaygaad ku leedahay inaan kaaga ku yeesho wax sharciya annaga aan u raaci karno oo aan kula reebi karno ayaa jirta oo markaas in la helo intaasoo in la mid ah xamar waxaa ka dhacday dood beri dhaweyd gobolka Banaadir nin walba wuxuu yiri xuquuqan ku leeyahay waxaa soo baxay dad orama ah Xildhibaan Dalxa waxay yiraahdeen wadanka xuquuqan ku leeyahay ayagana jinsiyadoodii waxay la soo baxeen oo orama ah muddan ku nooleen xuquuq waa la midnahay Soomaalidu inay yiraahdaan Dalxa waa mahadsantahay si fiican jinsiyad iyo baasaboor cid qaadan karto u sharaxday qodobada sharciga u tag qodobadaas buugga Korea la kaada waa mahadsantahay mudane gudoomiye qodobadan iyada si oo waxay ugu jirtaa oo angaltiita abuuqa nala soo geliyay laakiin ani waxaan rabaa in naloo iftiimiyo si aanan beri ma aragtay ay nagu xujoobin laakiin adoo aad u mahadsan waa la qabaa xilwaanadii saaxiibadayda ahaa ay yiri agaasimaha guud runtii wax badan bay qabteen hay'adda socdaalka laga soo bilaabo General Gafow oo horteena fadhiyo ilaa iyo hadda koofi iyo colkiisa way ku amaanan yihiin laakiin hal baan rabay baasaboorkeena 5 sano kadib waa dhacaya baasaboorka 5 sano haddana waxaad u baahnaanaysaa baasaboor cusub inaad qaadatid waagii hore waxaa la cusboonaysiin jiray markuu ka dhaco isla baasaboorka adiga haysatid beejka kale ayaa la furi jiray ayaa muddada lagu kordhin jiray laakiin hadda waxay noqotay annagoo kale hadda dhibka aan qabnaa waxay tahay sticker un baa lagu dhejinayaa baasaboorkaaga wuxuu ku buuxsamayaa 3 bil haddaad safaro shirar aad ka qayb gashid waa buuxaa ma suurtoobi kartaa haddii aanan sidii hore loo dhaqan karin in almiina 10 sano laga dhigo meesha 5 sano kaliya ay ka tahay sida baasaboorada adduunka ay badan yihiin billahi tawfiiq